habeen hore waxay soo qaaday nin taksiila ah marka wuxuu ila wadaagay arrin aniga naftirkeyga aan horey u qorsheeyay inaan idinla wadaagay laakiin ilaahay wuxuu ii saqiray fanka iyo hanaanka iyo qaabka aan idinkula wadaagi lahaa ninkan taksiilaha ah wadada ku xumaatay meel burbur ah oo dhiiqa ah ayuu soo marsiiyey laakiin ma malayn kartaa wadadaasi dhiiqada iyo burburka ah hareeraha waxa uga yaallo waxa ku yaala dabaqyo dhaadheer aad u qurux badan malaayiin qiyaastayda ama kumanaan doolar ama boqolaal kun oo doolar lagu qarash gareeyay marka wuxuu yiri niyahow magaalada way dhismaysaa laakiin wadooyinka hormara guryaha dabaqyada ah maxaa loo dhisi waayay waxa ugu dhacday buu yiri nin aad u labisan dhalinyaro ah akhayaar ah haybada iyo muuqaalku uu leeyahay aadan malayn karin ayaan waxaan ka soo qaaday mid ka mid ah xaafadaha magaalada marka guriga uu ka soo baxayay oo ah guri dabaqa ah mutuleel ah qurux badan lacag badan la geliyay iyo gaariga uu soo gaari waayay buu yiri dhiiqada iyo karakeeshinka iyo dhagaxaanta iyo gudaafada noo dhaxaysa guriga quruxda badan iyo gaariga meesha uu taagan yahay linkii ya allah ya nafs ayuu gaariga ku soo raacay isagoo kabahana dhiiqa ku leh laga yaabo in cazumaad fiican u socday anigana waa gaari waayay buu yiri oo dhiiqada iyo gudadka ka sokeeya qashinka markuu soo fariistan ku yiri niyo igana raalli ahaawe guriga ka soo baxday iyo wajiga guriga way kala duwan yihiin adigu waa qurux badan tahay gurigu waa qurux badan yahay laakiin wajiga guriga ma u qalantid gurigaasna ma u qalmo in meeshaasi uu ku yaalo maxaa loo sameyn waaye wajiga loo nadiifin waaye wajiga guriga loo dhisi waaye marka wuxuu yiri niyo waa mahadsan tahay aniga Kirista ahay 300 bishii la iga qaadaa ninka gurigan iska leh ee dabaqan taagtay waan ku wargaliyo waxaan ku yiri guriga waa dhisatay ma 10 mitir oo interlog ah ama 100 hadad ka dhigi kartaa yaa rate 100 mitir oo interlog ah maxaad u sameyn weys kolba lacag la'aan kuma hayso dabaqan ayaa ku taagan markaas yiri dabaqa aniga iska leh laakiin wadada aniga maleeyo guriga ayaa qosaya waxaan ku qalsbanaaday buu yiri inaan hadalka intaas sii wada maxaa yeelay waxa ku xiga buu yiri niyo kirada hadaad ugu jiri kartay sidaan ugu jira hadii kale iska bax meeshaasi maxaa ka baxay meeshaasi waxa ka baxay lahaanshiyaha wadada ninkaasi odayga ah ee guriga quruxda badan leh wajigiisa doosan qurxin wax macnaa guriga kuma fadhiyo labo wadada uu sameeyay gurigiisana waxay bili lahayd looguna duceyn lahaa hantidiisa gurigiisa marka uu qurxiyo oo uu dhiso manaafacaadka gurigan wuxuu noqon lahaa mid u dhadhama xayawaanka iyo gaadiidka iyo dadka hormarayana wadada uusan ku dhibin ninka daroolka wuxuu yiri niyo haddii ilaahay ku siiyo awoodo adiga ma samaysid oo aad ka ajirsatid ninkii taadii buu qaato yiri waxa ii soo ridaysaa buu yiri qola dhisi kartaa qolan ku xiro buu yiri guriga wadadii si qurux badan loo sameeyay maalin kale ninkii waxa noqonay macaamiil teleefankaygu qortay mar kale haddana ka qaaday guriga dhowr bilood albaabkan u soo dhigay gaariga interlock qurux badan sidoo hore ka fiican ka nadaafad badan marka waxaan ku yiri waa ma sha Allah niyo shaqadii waad qabatay haabo yiri laakiin wax kale ku sheegaya go'aan qaatay 2500 iga gashay buu yiri intaan yar ee interlock ah marka linki iska lahaa uu yimidna wuxuu yiri madiga sameeyaha ma sha Allah niyo qurux badnaada guriga kaan iska arag maxaa ka galay aan ku celiyay lacagti markaas ku irmay waxa la yeelin maayo intaan ana gartay ilaahay naga soo qaaday waana awooda intaan in la mid ah qabto ninka guriga iska lahaa wuxuu yiri niyo maadaama shaqadan aan qabatay 10 bilood ee soo socota wax kira ah kaama rabo waa ka cafiyay aadan u mahadsan tahay shaqadan
hadda ka hor ay soo jeedisay waan ka dhiga adeegay waan sameyn waayay laakiin hadda waxaa muuqata markii quruxda iyo marka 10 bilood عفيسا كتاي wuxuu yiri ninkii darawalka ahaa subxaanallah qarashka ka galay ninkaasi iyo kirada laga dhaafay wax weyn bay ay runtii ahayd in ka badan lacagtii ka gashay ayuu ilaahay ka siiyey marka wuxuu ku soo gabagabay eri cajiib wuxuu yiri Soomaalideena fikir aad u yar oo qof sameyn karo ama laba qof sameyn karta wax badan inooga baaba'ayaan marka dadku waxay u baahan yihiin buu yiri wacyigelin fariintaasan ka soo qaaday dabaqada la dhisayo fadlan ha lagu daro in qof walba oo dabaq dhistaa oo 10 tilaabo ama 10 mitir oo dan guud ah oo wajiga meel kale uusan aadin wajiga dabaqa uu dhistay oo quruxda badan inuu interlock 10 mitir ku daro dhammaan ganacsatadii milkiilayaasha ku dartayna waan u hambaleynayaa waxaan leeyahay أجري حسنات الله إنك سيو السلام عليكم